cidna ma filaynin Soomaaliya inay gaarto kama dambaysta ciyaaraha daa'irta bariga iyo bartamaha Afrika. haddaba Soomaaliya inay gaarto taariikhda markii ugu horeysay tartan caalami ah gorma ugu dambeysay maxaas u fuudiyay sanadkan ugu horeeyay finaal yimaada ay laakiin hadda ka hor 18 ciyaarihii juniorka saddex dal halkaas ku bariga bartamaha Soomaaliya iyo waxay ahaayeen Zanzibar iyo waxay ahaayeen iyo Kenya Soomaaliya qaaday laakiin hadda waxaan rajaynaynaa tartamada hadda aan qabanay qoladan oo dhalinyarada youthka ahayeen waxay noo batiyeen macna juhdi fiican dadaal fiican waxay noo muujiyeen dadaalkooda inuu horkacay leeyahay waxay ahayd maaragtay wax aad iyo aad maaragtay farxad u ah sababtoo aniga waxay ahayd markii ugu horreysay aan dibadda aado anigoo ciyaartooy iyo anigoo macallin inta mar wali hore uma aanan bixin laakiin waxay ahayd markii ugu horreysay runtii waxaan la helay maaragtay natiijo aan maaragtay cidna filay oo marka halkaan aan ka tagaynay maaragtay aan cidna rajaynayn maaragtay natiijo noocaas inaan gaarayno oo final noocaas aan tagi karno waxay ahayd kulli wax maaragtay aad iyo aad farxad igu ahayd maaragtay ciyaartooyda hore seera bas laga xul jir qaranka laakiin ciyaartooy waxa jir iskuul laga keenay ciyaartooy laga keenay barka ciyaal koob loo qabtay ciyaartooy laga keenay junior ciyaartooy laga keenay seera ciyaartooy laga keenay seera B marka sportiga wuxuu ku tusinaa wada toosan in hadda uu ku socdo ibal seera aad qaranka la gurbi jir laakiin hadda nin walba qaranka marka uu baxayo ilmaha dhan is jecelyihiin isku caloolfiyo yihiin Soomaaliya ciyaartooy daadooda ay ka yartay 17 sano jirada ay ka qayb galeen tartankii bariga bartamaha Afrika gaar ahaan ciyaartooyda daadooda ay ka yartay 17 sano cidna ma aysan filayn in ciyaartooydaas daad yar ee heerkaas ay gaari karaan waqtigeena ma aysan jirin inay fursad noocaas oo kale ay soo marto on finalka aan gaarno way jirtay in mararka qaar la soo guuleysto tartamada qaar laakiin kama dambays lama sameeynin runtii waxaana ku amaanan ciyaartooyda daayirta ee under 17 iyo macallimiintoodaba iyo xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo juhdi wanaagsan galiyay taariikh weyn ee Soomaaliya oo dhan u soo hiyatay dadka dibadda joogay gudaha waa markii ugu horeysay oo guul noocaas oo kala ay dhalinyaro Soomaaliyeed soo hiyaan tan iyo burburkii dalka taasna sida Soomaaliya mar walba u soo dhaweysay maamul gobol ahaan aad bay noo farxad gelisay waxa kaliya maanta u baxeen juhdi u galiyeen inay qarannimadan difaacaan inta ku gudi jiro horta in ciyaaraha qaranka aan u dheelay ma filaynin tan inaan sameey karno waa anaga xaalada waxaan la soo kulnay aad u akiran oo dhibaato u badan mar kasto tartanka aan ka qayb galnana meelaha waxaan ku soo hari jirnay groupka taa ugu soo bixi jirin wareeg hore aan ku hareynay marka juniorka waxaan noo fureen isleeyahay baab cusub oo niyad u dhisaayo ciyaartooyda naftigeena waan soo nooleyseen dib baa waxa noo soo xasuuseen waqtiyadii hore iyo sidaan u noolaan jirnay iyo sidee aan ugu faani jirnay Soomaalinimada haddana idinkaan noo bilaabay hadda marka ogaada meesha aad Soomaaliya kaga jirtaan waa baal dahab ah subax kamid ah carruurta ay tababar sameynaysa ayaa garoonka loogu timid garoon socota garoonka waxay soo carareen ومع الوقيقة محاوقية ما يضرون وإسكاك عيارة عيالك أدمك رمتي إمادة إيكو لشين إيكو بربارين إيكو سوطة برتين إمادة إيكو عيارين وإفايلكم يعني مكان فيني رمتي وعيال بلن قاضي مستقبلكم بدعة السومالي إنه يهمد إفتيمايا قفك الشخصي waxa uu shakhsiyadiisa uu qabto waa gooni oo magaciisa uu qabsado laakiin magac umadeed ee dal leeyahay dadkii sumcad iyo sharaf ku soo hooyay taariikhda xusi doono waalidiinta ciyaartooyda 17 jirada ama ka yar da'dooda waalidkii dhala aabe iyo hooyo walaal iyo saaxiib daris iyo deegaan haddii aydan maanta dhiirigelinta idinka soo bilaabo lahayn oo aydan u soo fasixi lahayn oo aadan garab istaagi lahayn taariikhda iyo cizada iyo sharafta ay Soomaaliya u soo hooyeen maanta ma keeni lahayn hooyo waa mahadsan tahay aabo waa mahadsan tahay intaasi in kala badan dhawaan ku daabo barnaamijkan oo dhameystiran adigoo aad heli doonto wax badan oo ka farxiya iyo wax badan oo ku xusuusiya wixii ay sameeyeen daayirta Soomaaliya wixii ka dhacay Burundi